بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan walaalada ee ku xiran kanaalka xogta salafka waa salaamaya salaan kadib waa fadhiyadeennii ku saabsanaay ramadaanka iyo axkaamtiisa iyo as-iladiisa fadhigeenaan galabta insha allahu tacaala waxaan kusoo qaadanaynaa su-aalihiina soo gaaray hal su-aal oo ka mid ah su-aashaasoo xoogoo faahfaahin u baahan ayadoon baan insha allahu galabta ku gaabsanaynaa wixii kale dib baan u dhiganaynaa su-aashaas waxay leedahay maadaama hadda xaalad culus lagu jiro dunidoo dhan ay kala xiran tahay masaajidadii ay xiran yihiin bannaanadii ay xiran yihiin lagu tukan jiri ciiddina ay soo diyaar tahay maxaa la samaynaya ciiddi ma la iska daynaya mase waa la tukanaya haddiise la tukanaya qaabkee lagu tukanaya loo tukanaya inteesa lagu tukanayo oo uu malaa'iq ah oo lagu tukan karaa su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayno kow waxaan ka bilaabaynaa salaadul ciidda horta xukunkeeda muxuu yahay culimadu islaamka ee fuqahada gaar ahaan madaahibta afarta ah way ku kala aragti duwan yihiin madhabka madaahibta ugu horreeya ee ugu da-weyn waxaa waye madhab alxanafiya ama alaxnaaf ayagu waxay qabaan salaada ciidda salaadaha kale ay lamid tahay waa fardun cala al acyaan qof kasta goonidiisa ay ugu waajibaysaa jimcada ay lamid tahay xugun ahaanteeda halkaas ayay mareen ayagoo markaa ku dhisaya daahirka adilada ku soo aroortay sida qowluhu subxaanahu wa tacaala okaleeto ee fasalli lirabbika wanxar amarkaas wujuub ka soo qaaday iyo adilada kale oo kitaab iyo sunnaba leh oo ku soo aroortay madhabka labaad waa madhabulmaalikiya washaaficiya oo wada socdo oo ayaga qabo inay tahay sunna mu-akada walow ay jiraan culimada qaybo ka mid oo aan badnayn oo fardu kifaayo ku magacaaba culimada shaaficiyada rag ka mid oo sidaa doorteen waa jiraan laakiin madhabka shaaficiyada iyo maalikiyada siday u badan yihiin waxaa weeyaan inay sunna mu-akada tahay ayagoo markaa ku dhisayo adilada soo aroortay ee waajibisay shanta salaadood oo keliya ah oo ayna waajibinin salaad kaloo waajib aysa jirin ilaa nabigu calayhi salaatu wasalaam hataa nin uu su-aal weydiy oo yidhi shantan salaadood haddaan tukado wax kale oo leegu leemi jiraan mayaa lagu yidhi ilaa inaad sunno la timaado mooyaane adilada ayagoo ku dhisayo adilada hore wadaadada hore ay daliishadeenna kaga sarfinaya wujuubka kuwan iyo kuwa lamidka ayaa marka waxay dhaheen waa sunna mu-akada qowlka saddexaad oo masalada ku jiro waxaa weeyaan xanaabiladu qowlkooda oo ayagu leh fardu kifaaya intooda badan ayaa sidaa qabo marka si kastaba ha noqoto ninkii fardu cayn ku sheegay iyo ninkii fardu kifaayo ku sheegay iyo midkaas sunna mu-akada ku sheegayba dhammaantood waxay isla wada ogol yihiin inay shay mashruuc tahay lagana tegi karin oo qofka muslimka inuu macnaha la yimaado ay tahay qof kastoo muslim ah kaa waa qodobka ku saabsan xukunkeeda qodobka labaadan u gudbayna waxaa weeyaan meesha lagu tukanayo asalka waxaa ciidda ahayd in lagu tukado meelaha bannaanada sida nabigeennaba calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiri saxaabadana ay samayn jireen haddii la waayana in masaajidada lagu gaabsado oo markaa ama ay cudurtowdo in banaanka loo baxo in masaajidka lagu tukado
haddii labadii midna ay adkaatay oo labadii midna ay suuroobaynin waxaa lagu tukanayaa guryaha lagu tukanaya. taana waxay culimmadu u daliishadeen aqwaasha saxaabada qaar ka sugan sida Anas ibn Malik radiyallahu canhu, sida Bukhaari uu tacliiq ahaan ugu keenay, culimo kalena ay marka isagoo mawsuul ayba keeneen, waana athar sanadkiisa uu sugan yahay saxiix ah. oo Anas radiyallahu canhu haddii jumcada ay dhaafto baa wuxuu samayn jiray in ahalkiisii carruurtiisa iyo dumarkiisi iyo addoommada u joogay intuu aruuriyo ayuu addoommada ka mid ah ayuu dhihi jiray tuji dadka, inkastoo riwaayaad qaarkood ay sheegeen inuu asaga tujinaya. si kastaba ha noqotee atharkaas ayay culimada u daliishadeen. marka waxay dhaheen haddii meel kaloo lagu tukado la waayo guryaha lagu tukanayo. qodobka saddexaad wuxuu yahay haddii guryaha lagu tukanayo qaabkee loo tukanaya. ileen dad badan baa laga yaabaa maxaa la yidhaha ciidda dadka ay kala qaybgeli jireen, marka laakiin ayagoo ahaantood weligood si gooni ahaan uma tukunin, dadna ma tujinin, marka waxaa laga yaabaa inaysba aqooninba ama inay u haystaanba haddii guryaha lagu tukanayo inay qaabkii loo tukanayo ka duwan tahay. sidaas saxiixa waxaa weeye culimmadu aqbaal bay ka leeyihiin, laakiin sida saxiixa ah oo sawaabka aad moodid waxaa weeyaan in qaabkeedii loo tukanayo. oo qaabka loo tukanayo muxuu ahaa in marka koobaad la istaago, takbiiratul ixraam lala yimaado, la xirto. markaad xirato oo takbiirata koobaad oo salaada caadi loogu xiran jiray aad ku xirato, inaad gadaasheeda 7 la yimaado. annaga madhabkeenna ayaan ka hadlaynaa, madaahibtu ku kala duwan yihiin. madhabkeenna shaaficiyada waxaa weeye in aad takbiirtii aad ku xiratimiina 7 kale aad la timaado, 7 jeer allahu akbar allahu akbar allahu akbar 7 jeer adda. markaad dhamayso 7 ay kuu dhammaato ee ayna ku jirin takbiirtii aad ku soo xiratay, faatixadii ayaad akhrinaysaa. faatixadii markaad dhamayso suuratul aclaa inaad ku xijisa ayaa sunno ah oo nabigeena samayn jiray calayhi salaatu wasalaam. sabbix isma rabbika alaclaa aladii khalaqa fasawa, suuradda inaad akhriso. markaad suuradda dhammayso, haddii aad aqoonin suuradda, haddee suurad kale oo taqaano oo qur-aanka ka mid aad akhriso, ama ha dheeraato ama ha gaabnaato, ayaad marka waxaad samaynaysaa waad rukuucaysaa, kadibna sujuuddii samica allahu baad aadaysaa, kadibna sujuuddii baad aadaysaa. sujuudihii markaad soo dhammaysatana waad soo kacaysaa. markaad soo kacaysa takbiirta aad ku soo kacday allahu akbar aad leedahay, taag ma ihina 5 kale haddana aad takbiirsanaysaa. 5 kalead bilaabi allahu akbar allahu akbar allahu akbar 5 markaad gaarsiiso, haddana faatixadii baad akhrinaysaa. faatixadii markaad dhamaysato, haddana suuratul ghaashiya oo hal ataaka xadiithul ghaashiya loo yaqaano ayaad akhrinaysaa. haddii aad garan waysana suurad kalead akhrinaysaa. khalaas suuradda markaad dhamayso waad rukuucaysaa, haddana samica allahu baad leedahay, ictidaalkii baad aadaysaa, haddana sujuuddii baad aadaysaa, kadib ataxiyaad baad u fadhiisanaysaa. len maxaa yeelay salaatul ciid waa 2 ragcadood wey, ka badan ma jirto. marka kayfiyadaas oo mar horeba loo tukun jiri unbaad u tukunaysaa. keliya waxaa laga bedelayaa kayfiyadii hore hal shay ama hal arrimo, oo arrintaas waxay tahay markii la dhammeeyo, markii bannaanada iyo masaajidda lagu tukanayo waxaa la akhrin jiri khudba la akhrin jiro, khadiibka dadka tujiye khudba u akhrin jiri. ama haddaba khudba ma laha, maxaa yeelay sabab loo khudbaynaana maba lahaba. marka kayfiyada noocaasa ayaad u tukunaysaa in sha allahu tacaala. marka 3 qodob ama 4 qodob aan dhihi karno ayaa ugu muhiimsan, oo ah xukunkeeda inaad ogaatid, meesha aad ku tukuni inaad ogaatid, qaabka aad u tukunaysana inaad ogaatid. marka in sha allahu tacaala khayr iyo baraka ayaan in rajaynayaa.
ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala culayskana haysta inuu ilaahay naga qaado cudurrada iyo aafada wareegaysana dhammaanteen inuu ilaahay naga badbaadiyo kuwii soonkan ka faa'iidaystay ee qiyaamkiisa iyo qur-aan akhriskiisa iyo cibaadaadkiisa kala duwan dembigoodana lagu dhaafo allah naga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada ha nagu kulmiyo fadhigan iyo fadhiga xigo هذا والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.